ninkan aad u jeedo muddo ku dhow 20 sano afkiisa cunto ma uusan saarin sababtoo ah wuxuu rabaa inuu noqdo sida waraaqadii oo xitaa markuu wadada marayo dabeesha iska macalin karo oo ay duulinaysa eego kaliya ay caliya kadib xariifkii caruurtan ay arkaan mid kamid ah ilmaha ayaa wuxuu sheegay hooyadiisa wuxuu ku dhahay hooyniga sarag maxaa ku dhacay hooyadii ayaa yaabaysa oo xanil yaabaysa ninkan iska dulduulay kaligiisa sidoo kale eego uu ku qeexay markuu guriga joogo sababtoo ah wuxuu leeyahay ninkan iska dulduulay xitaa hadii uu rabo inuu cadeysto wuxuu cadeysta si taxadar leh hadii kale wuu dhacaya sidoo kale iska macalin karo hadii uu wax ku soo socdo hadii kale dhaawac ayaa soo gaaraya xitaa hadii uu rabo inuu iibsado kafee qofka waiterka wuxuu ka baqayaa qofkani inuu ku jabo sidoo kale markuu ciyaarayo basketball asxaabtiisa waxay ka baqaan qofkani inuu ku jabo sababtoo ah isaga waxa uu ka daran yahay xitaa xaanshada xitaa sidoo kale markuu wada gaari si taxadar leh ayuu wada hadii kale uu duulayaaba xariifkii ilaa uu ka noqday caan la heer laga soo daayo TV showga yaani la wareysto sidoo kale gabadhan waxay ka baqaysaa neeftiisa ninkani inuu ku duulaba waxayna isku celinaysaa neefta kadibna ay ku uraysaa oo ay u sacbinaysaa laakiin jirkiisan caata ah hal faa'iido kaliya ayuu leeyahay halin isagoo wadada iska maraya wuxuu arkayaa jibsi dooqiisa si automatically meesha ayuu soo galayaaba ileen isaga xaanshada waxba ma dhaame kadib ayuu wuxuu ka baxsanayaa hal jibsi kadibna uu dhadhaminayaa si automatically jirkiisa hore ayaa u soo laabanaya oo meesha ayuu ku dhigayaa kadib ayaa wuxuu waayayaa ninkii qaab uu meesha ugu soo baxo